jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Oslo ee wadanka Norway ayaa waxaa loo soo bandhigay buugaag cusub oo ay qoreen qorayaal Soomaaliyeed waxaana dadka halkaasi lagu marti qaaday kamid ahaa xildhibaan Cabdi Cali oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya gaar ahaan xildhibaanada golaha shacabka wariyaheena Xasan Saciid Rasta ayaa warka nooga soo diray Norway adoo anshax iyo edaab leh asluub xumo abid hayeelin ha u abuurin anshax xumiyo waxaan anfacaynin naftaada u iilo dhankii wanaagsan u duubo ololeynta guusha astee aflax iyo aqoon madashan soo bandhigidda labada buug ee kala ah bidhaamiye uu qoray macallin Bashiir Cali Xuseen iyo buugga eray bixinta caafimaadka uu isna qoray Dr. Maxamed Xaashi ayna ka qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Oslo ay ka dhex muuqdeen mas'uuliyiin uu ka mid yahay Dr. Xildhibaan Cabdi Cali iyo macallin Mulaxan Abwaan Axmedey Cabdi Gaashaan ayaa looga sheekiyay taariikh ku saabsan labadan buug bidhaamiye iyo eray bixinta caafimaadka kulankan madasha bandhiga buugaagtu ay soo abaabushay GSD golaha Diaspora Forum Soomaali ee dalka Norway ugu dambeyntiina qorayaasha labada buug ayaa kulanku markuu soo idlaaday ii sharaxay ujeedka soo saarista labadan buug magacaygu waa Dr. Maxamed Xaashi waxaan deganahay Sweden Itibaro deganahay runtii baryahanna waxaan aad ugu hawlanahay inaan qoro buug la xiriirta luqadda afka hooyo kadib marka arkay jirto baahi fara badan waayo caafimaadku waa shay muhiim ah inuu qofku ogaado oo fahmo markaasi aan u dhicin khalad iyo inaysa garan waayo والله بوكن بدامية وقت سيدي سوا وهي لنا يا أخويو وطلقال كبوكن نوعي هاي ولو طلقالي الماء يركع قربها كل شيء أما عن كوكورين في الأبسومالي وكهلي كرو يسيدو كره دكواوين عن هلين هنا القرآن عن هلين نصيبنا عنو يهلين إنه معلم سوي هرستان لبدا صوحه هي لو طلقال بوكن waxaan oran karaa nimanka buugaagta soo bandhigay Soomaalida halkaan joogtay u hiiliyeen qorayn Soomaalida meel walba ay joogtana waa u hiiliyeen luqadda Soomaaliga waa luqad qadiim oo aniga oo aqaan luqad qani ah oo sida hadda qoraagi oo maxaa la yiraahdaa telebixiyaha uu sheegay luqadaha adduunka waa ka qanisan waxyaabo cajiib kale oo dadku aynan ogeyn annagaan u hiilinaa marka laga hadlayo ilaahay marka laga hadlayo luqadaha kale hal eray ka badan luqadda ugu badan lama sheegi karo annaga ilaahay waxa uu naqaanaa ilaah rabbi eebe waa kalo anigu aqoon waajina adduunka ma jiro wadan intaas ilaah ku sheegi karo hal eray ilaah ku sheegi karo marka waxaan qabaa aniga maanta fursad ay yahay anaa wax ka bartay waxay kaloo fursad iigu ahayd il aan eraya aan isticmaali doono insha Allah oo maadaama shaqadeedu ay hadda tahay sharci qore dad la hadlin in aan ka faa'iideysan doono meeshii eraya badan oo iga maqnaana halkaan ka bartay ayagana aan la wadaagay eraya hadda aan ku hormarin dalka gudihiisa oo fursadan ii ahayd marka waa munaasabad qaali ah dalkayga mar labaad aan ku soo laabtay saaxiibadii oo mid aad ayaan kaaga mahadcelinahay Xasan Rasta SNTV Oslo magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug ayaa waxaa galabta ka furmay tartanka kubadda cagta degmada